السلام عليكم reer Wajeer waanu ah walaalkiin wiilkiina Umar Sheekh oo ah musharax gabadha Wajeer 27 waxaan doonayaa inaan la wadaago laba shay tan ugu hor waxa weeye anaga hadaad ogtahan cidii reer Maxamed ama reer Maxamed baan waxay ku shirtay magaalada Hadaato shirkaas waxa la qalqaalay 3 bilood ee la qalqaalay shirka Hadaato maalinta ee taariikh 19 bisha 7 ayaa lagu sameeyay shir aad u bilaaran magaalada Hadaato waxa ka soo qaatay dad fara badan oo ka baad meel kasta waxa laga baad dibadda Kenya Mombasa Nairobi Garissa meel kasta laga baaday marka shirka intaas oo kun oo qof ay isku amaatay shirka marka lagu duceystay quraan baa lagu akhristay bacd quraan waxa la sameeyay declaration ama go'aan baa la gaaray go'aanka la gaaray waxa sahay in cidda xagga siyaasadda taariikh 17 September isku qamaada oo laga hadla siyaasadda cidda Maxamuud go'aankaas ayaa ka soo baxay Hadaato declaration marka taas kadib waxa dhacday in nin musharax horta Maxamuud waa saddex waxa waa Yaxya Maxamed Dahiye Axmed Qoloosh iyo Umar Maxamed Sheekh saddexdaas qof ayaa sheegatay inay rabaan kursiga gabadha 27 oo ka socda reer Maxamuud marka saddexdii qof hal qof ayaa tabcay markaas aad bedelo taariikhdii ay qabteen Turkey oo 19 September ahayd marka odayaal hoos kala heshiiyay odayaal oo inta la heshiiyay oo ay shirkaas soo dejiya marka shalaytu waxa ka dhacay shir weyn ayaa ka dhacay shir yar ayaa ka dhacay meesha reer Cross waxa shir loo dhanyaa ma ahayn shir albaabaa loo xirtay oo dadira isku amaadeen ay ahayd marka odayaal meesha maantay waxay dhaheen xarb aan ka hadalno aan bilaawno processkii uu kala saar lahay saddex musharax marka ani waa ka diiday processka waxa dhahay wax la bilaabaya ma jirto sababtoo ah shirki weynaay oo ka dhacay Hadaato waxay taariikh 17 marka shir saad ogtihiin haddii aad dhaca shir shura bacda shir waa fitna haddii aan ku shuraysanay Hadaato oo kadib aan bilaawno shuro kala marka horta waa fitna marka shalay u sheegay wax wadda waa fitna iska joojiya way diidaan marka shirki buuqa ka dhacay shalay maqribkii aan ka soo baxnay marka maanta waxaan rabaa inaan reer Wajeer u sheego wax shalay meesha ka soo baxay malaha anaga Maxamed waxa isku qabsana taariikhda waxaan rabaa marka tii Hadaato oo cidna baa ogeeyay ku korna marka saas horta waad ogaanaysaa mid labaad waxaan rabaa inaan sheego anigu waan taageeraa doorashada qaadada 27 saad ogtahan aniga waa horaan ku sheegay waxaan nin advice nin consultant ahay xagga maamulka waxa ku expert xagga development waxa ku expert waxaan inta qof oo taaga ama reer Wajeer maanta nin iga aqoon badan xagga development Wajeer ma jiro anigu ku dhashay oo aqoon u leh development Wajeer maanta waxaan in sheegi karaa biyaha Wajeer dhulka hoose meesha biyo ku jira meesha biyo ku jira qaayo arbajaan yamicha Hadaato Habasweyne Diif Liboy dana dhulka hadda high ground water potential waa meesha ugu biyaha badan ground water inta kale Wajeer hadda loo ground water potential biyo ku yiri marka aqoonta Wajeer aad u leeyahay ciidda beeraha xoolaha resources Wajeer aad baan expert ku ah marka waxaan doonayaa inaan ka shaqeeyo habkii Wajeer aan ku bedeli lahay oo horumar ay weli gaar aan gaarsiin marka intaas rabaa maanta inaan sheego assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh